dartiis in la isugu xirmo oo inagoon xoolo kala qaybsanaynin qabiilkuna ina midoyiin oo reer baan isku ayna dhahayn ee ay tahay waxa aan isku xiriirinayno diintaas islaamka iyo mawduucyada kala duwan ee hadba markaas baahida loo qabo in yani aan ka sheekaysano ay tahay waa wax aan weyn runtii mustaqbal fiican yani eegooda gaar ahaan marka aan ka dhalinyaradan oo wiilal iyo gabdho leh oo ihtimaam weyn siinaya diinta iyo barashadeeda iyo mawduucyada kala duwan taas waxay ku tusaysaa mustaqbalka soo socda in ay diintani guulaysan doonto maxaa yeelay haddii dadka hoolkan isugu imaaday ay intooda badan ay ahaan lahaayeen dad odayaal ah sida beriyo jiri jirtay oo kale haddii masaajid la galo in ay odayaal ku jiri jireen dhalinyaraduna ay ka maqnaan jireen yani arrintaasi waa laga soo gudbay oo hadda waxay taagan tahay ama masaajid ha la yimaado ama jaamacad ha la tago ama muxaadaro meel lagu qabanayo ha ahaatee dadka ka soo qayb gala waxay u badan yihiin dhalinyarada odayaashuna ay ku jiraan laakiin dhalinyaro ayaa u badan taas waa mustaqbal fiican hal maalmaan ii sheegay waxmaynaya waxaan yidhahdaa waad sii bilaabays waatan isku ogan isku naqaanay qof walbana waxaan filayaa hadda haddii la yidhahdo bal waxyaabihii aad hore u maqashay ee sheekh cabdilxay ka maqashay wax ka sheeg in badan ayaad kor ka haysaan waxaa ka mid ah ninkii qur-aanka magaca ay ka soo saar intii la yiri looga soo saaray magaca oo kuub baa la yidhaha watara kuu kala sheegaysaa meeshaa ku sheegaysid marka يعني مر بدل ما هي ناس ولا قالنا ترى عن أصعد وحيتها من الحال هذا مركب مثلا قف وجيل لقنا يجيل كده هدي جيلة حلاها واوي أي جيل يسوق بطن أو جيل يركعه وجيل يسوق يرعاه جيل سيتر ما يومئكم محايلة كل واوي وإنما عيا جبالنا وكسر دبرقوا عيا مركب أفهمني وحال هذا قال بهول وجيل قرب دروها باللاوين قال هذا ما كي كافر كان ما جيل ولا حال قال بهول وجيل قال جيل بكره إنه بقى ما دماره قرب دروها باللاوين قرب على الدلال قرب عمود بس يترمايا عشان حاجة شيء قرب عيب شيء تيك القرب عيب شيء تيك القرب عيب شيء بس جيل استرم مسعره وبابي الربع مركز أمد مركي أي دبر قول ربطه أما فكرة مركي أي دبر قول ربطه dhalinyarada ayaa ku yaraata odayaasha ku bata odayaal waqtigooda iska dhamaanaya hadda marka sida hadda inoo muuqata alxamdulilah ishaaro weyn ayaa helayna waxaan ugu soo biiray oo soo dhaweynaynaa sheekh kenyaawi jazahu allahu khayran oo ka mid ah culimadeena iyo odaasheeda waa sacabta oqoonaa sacabta garaa soo dhow sheekh waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad كلنا كنا نرسل قبل شيء وشيخ أثناء دليل كبده وحواي شيخ دليل وشيخ وعاء هدات دليل لسه من دليل على الدين نرسل له الشيخ جزاه الله خير نرجع يعني مع ماذا الإنسان سأله شيخنا ربنا مسؤول ولاية كيان وأثناء وكان دونا وشيء دونا مع مهديسة مرجع قال هو يجيب الله بالله وين هذا الحمد لله وان كرهنا يا دليرة إنه بدل مركب مستقبل في عنا إنه صورة دليرة إن الله خير السيو نبي صلى الله عليه وسلم شاف صرف أيوة دليرة السيو وحول وغياش مركب إجرب هي كبحين واحد إجرب السيو دليرة هي هاين مركب أمر مركب هرمه الصعوبة دليرة أيوة إله ده جيا مستقبل في حنجيل مركب دليرة إله أنت إله جيو جماعة أنت إسقاب صغار ولا ليبان إلى الدين تودا يوضع كودا يومر دولا إلى الإنسان حيابها موضوعية هذا عن كان بين أنا سوق قاضنا إننا موضوعية كشرك العين نورش السجارة وتعبنا يو بل يرضى يمكن بحلول دردارمو يحمل حرد عين مرايا يسد عيتان لكن يا بقوس ما يو وحكدر ما يانا قبصري أو يعني أمة المي أيا خلاف كل داهي oo hagaagiyay oo dhaqaaqi u diidan ayaa inuu dhaxdhacay diinteena waxaan ka baranay quraanka waxaan ka baranay ummad walba markii tawxiidka loo sheegay kadib markaas baahida ay qabaan ama cudurka ugu daran ee ay qabaan ayaa laga daaweeyaa marka ummadda Soomaaliyeed haddii aan ka soo tagno yani muhiimadii oo ahayd tawxiidka la ilaaha muhammad rasuulullaahi
يعني أي قسيين وإن الديدرين باهي هذا إنه أقول بدن إنها يستوى حيتها تفرارقة إيه كلا الدوناشة إذنكم يقولون بدن كان هتجوب تالي كينيا أدوكتي إنت أسوى قومي دول أو أفف كلا الدول كوها الله ديما كلا الدول هيستا هذا لنا ولا النوران يهدرون إنما أو صومالي أو هل قوس أو هل قومية أو هل لقد كوها الله أو دين إسلام كوها هيستنا سيد أمور ولا النوران أيا لقرن لا يهير خلاف أيا إن الداشري مركب إن معنا بالخلاف كبيرك بلاد السوشيال أسبابها كانه أو معنا مثلا الدين تمرك لها الله كلا الدوانشة وحيابها كانوا أو رنتي يعني ذكي هرنا أنت كلا الدوانابين أي حدنا هرنا هو السعوديين لدين تلمامه سيد اللي يرى هدي رأي ممكن الدوانابين أي نقول ملايين إن ممكن التجمعشة وأنتوا أي تهي أهل هرنا قلنا عضي حتى أنا عايزة صونا بعدونها وحوك هرنا وحيتها خلاف كماريتي سو دعايا وأهل عادي هو دعاء لكن أمها maareeyo oo dadkooda ayagoo raayay kala duwan isku dhinac u jeediyaan horumar ay gaaraan kuwa is ag fariisto ayaga isku mashquulana horumar ka gaaraan marka doctor zawla waxay wuxuu nooga hadlay khatarta kala tagitaanka iyo maxay u leeyahay iyo midnimada ahmiyada ay leedahay iyo aayadaha quraanka ah ee midnimada ummadda u tilmaamaya ee quraankeena ku jira oo uu xusuusiyo أنا أقول لك إنه وقت الإسكان اللي هاي ورنا سامو الشارع يتهم إن السلام أو يسوون بالوينه أو يعني ذكر المسلمين تهم كده يجيك يسوق بوران أو يسوق إماران يسوق إمام شخص أيات المدافع لجهرة محايا المتزاوجين فيها المتجالسين هو إلى يدرك ولا فريسته هو إلى يدرك يسوق بوران ما أنت قيامة أو حيلين المنابر من نور من براء كراس النور أيام وقت قعدت إلى يدرك يسوق حريريا كراساس أو نور كأه يقبضهم الأنبياء والشهداء وحامد جرتا در أنبياء والشهداء محيينا لي هذا إلهي درتي وحكى إلى الوجه سيدا اسكت برتي سانا اسكت على هذا أيام قبائل كل دوينة وحياة كل حياة ومصلحة الدنيا أي سنتي سيدا سوى السعودية ومن دان رجال إنه كل كلام الله إلهي درتيس ضد اللي يرى أو يقبل يعلم أو إماتي أو بوقشة وجوته هي إن الكلمات اللي سوشيالو أنت عم تسوق الماضي إن يعني يسموه احتساب عند الله سبحانه وتعالى أسباب تمرك خلافة كانت وبثم ما كتاب لنا الله واصل كتابه القرآن أو فقه الإسلامية علماء يعني الدين تاع الإسلام كا هراي إلى لون رئيسي أو كالدوانان شو أي لجسوا قاتلين كالدوانادين أو مذاهب يعني إسلامية أو هرجل أو عالم الإسلامي لجي قانون جديين oo markaas dadkii ay madaahibtaasi ku kala beereen sida waxyaabaha keenay inay la iskala duwanaado maxaa kamid ah dhowr xabaan ka soo qaadaynaa way badan yihiin yani oo fudud oo waaqicayna yani xiriir male oo aan fahmi karno waxaa kamid ah asbaabta kala duwanaanshaha dabiicatul bashar bini aadamka kala duwanaanshihiisa sida wejiyada dadku ay u kala duwan yihiin hadalkooda uu kala duwan yahay fikirkoodana uu kala duwanaanayaa kala duwanaanshahaas marka bini aadamku kala duwan yahay dhib ma leh taas waxay keenaysaa fahamka islaamka ama nusuusta naftirkeeda dabiicadii dadka qof walba dabiicadii siday ahayd ayuu u qaataa diintii marka dadka dabiicadooda qaarna way sahlan tahay oo waa dabiicad fudud qaarna dabiicadoodu way adag tahay mid walbana ilaahay ayaa sidaas ka dhigay qof asagu isu sameeyey ma jirto kala duwanaanshahaas bini aadamka ka dabiicadahu kala duwan yahay هل ولا كل دوانان كرا تصالحان ما دام سوق هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا أبو بكر الصديق ولا ليس حال الجليل أو خلفاء الراشدين كي كمد أو تبارك جنة اللي هو بشاري كمد هذا في السوق طبيعة الله ويكل الدواني أو سيد عمر سوها سيد أبو بكر سوها ويكل الدواني دعوات أيضا من بلاد الشرعية لبضورة وحكومي لمركي دجال كي بدر ودعي dadkii maxaabiista ahaa ee laga soo qabtay gaalada maxaynu ka sameynaa sayidina abubakar akuure wuxuu rasuulka ilaahay dadkan inkastoo ay gaala yihiin haddana waa ehelkeena iyo qaraabadeena fiiro abubakar sidiiq hadda waa ehel iyo qaraabo iyo cashiiro ayaynu nahay waxaa ila quman aniga inaynan dilin madax furasho inaan ka qaadno oo hadhow aan u kaalmaysano
dagaalada aan iskaga dhicinayn ee aan ku jirno haye cumar waxay kula taagay anigu waxay ila tahay mid walba midka ugu dhow ee qaraabada yihiin in la makaniyo oo loo dhiibo oo qoorta ku dhufto si ayna gaaladu naxariis inaan u hayn ayna u arkin saas aan ila quman soo marka laba raayo kala duwan ma ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu raacay ama uu qaatay raayigii Abu Bakr Siddiq oo ahaa inaan la dilin ee madax furasho laga qaato quraanku markuu soo degay yani oo aayadii ka hadla arrintaas ayada ah waxaa la tilmaamay mowqifkii sayyidina Umar inay arrintu ahayd laakiin haddana waxba looma haysto oo yani waa ijtihaad markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay u yimaadeen labadoodii ayagoo nabigu u weynaaya president maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi cadaab ayaa noo soo dhowaaday oo geedkan ayuu noo soo istaagay haddii naxariista ilaahay aysan lahaan lahayn ama hadduu soo degana cumar bas ayaa ka badbaadi lahaa oo qur-aanku markuu hadlahay maa kaana nabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkhana fi lardi turiiduuna carba addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fiima akhadtum cadaabun cadiim fakuluu mima qanimtum xalaalan ayiba haddana waxaa la yidhi way idin bannaan tahay inkastoo canaantaas loo hormarsiiyey nabiga sal ly slam dabiicatu bashar si u muujin wuxuu ku yidhi cumarow adigu waxaad la mid tahay nabiyada ilaahay markii aan fiiriyo dabicadooda waxaad ku nooc tahay adigu nabi nuux iyo nabi muuse nabi nuux qowlkiisi markay dhibeen oo muddo intuu wax u sheegay ay warkiisa diideen ilaahay ayuu bariyey markaas wuxuu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara innaka in tadarhum yudillu cibaadaka walaa yalidu ilaa faajiran kafaara ilaahu hal qofa ka reebin kulli ilaahu dil ayuu yidhi kuwaan nabi muusena fircoon markii uu dhibay isagana fircoon ayuu habaaray وقال موسى ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ادرس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وحول إلهي عذابك مركب قصة وضع فرعون يقصي إلى علي انتو سن عذابك إيمان الكهر فرعون إنه إيمان قاطع وإيمان هدو قاطع عذابك أيها لقد بين آيات كسي علي تاسو حيسوح قصة وصومالي خلافات كده يدح جرا وادوبتيين waxa marka qaarkood isku khilaafa mawliidka iyo qasiidada akhriyo way jirtaa iyo ma jirto waa kala qabtaan waliya marka salliga oo midna rabbi salli iyo ayaa wadaada qaaday mid dhalinyaro ah oo aan ogolayn arrintaas yaa dhinac kale wuxuu ku yiri rabbi salliga naga dhaaf yaani saas ma jirto wadaadkii isku ooyay marka sax maxaa ku dhaco loo yirisaa wuxuu cunugan yarka ah salliga yidiidan aniga ma ka ooyinay laakiin waxaan leeyahay ma taqaanaa aakhira markii la tago oo kan naarta loo diro nabiga naqaana naxariis badiisa iska dhaafo doona marka taas ay leeyahay suudan nabiga naqaana naxariis badiisa in uu iga fakiyo gacabsanayo marka yaana danaan muuse wuxuu ilaahay ka sii baryayaa ilaahayow fircoon إيمانك يقصي يرالي محايلة دو إيمان قاطو لما عذابه لكن دو إيمانك سيواي واللي سيواي فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إله يسر يعني يوسف بين حتى يروا العذاب مركا نبي الحكوري سيد عمر أظن واحد كل نوع تاي حقاس نبي موسى إيا النبي نوح ومحي نعاس محي تاي ضبيعة كوا وين بين إله ضمان وحنا كسوريين أبو بكر الصديق من حالوين وحالوين أبو بكر الصديق وحاب علمنا تاعي علينا ومثل كانوا لم يجي نبينا مركي لفيريو نبي إبراهيم يا نبي عيسى نبي إبراهيم نبي عيسى محي أنا يوم محي سنة نبي إبراهيم نبي عيسى محي أنا يوم نبي عيسى وحالوين هذه أنبياء كل أنا يهويني إلهي أنا قدك إلهي سكديس مركز يقول ما أنا صاص ما ردين أنت أفرنا دي جبت أنا جو إلهي عارض أيام الشاق كذب أنت عندك الإسلام أنت كان على إلهي إلى ركعها وكون أنت أصلا ميلاد كل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا العذاب تنوى ضومها اليوم أظن بعضهم هذا السكد سنة إلهي عود يا والله لا عدك ويقرصن كرته ومحل يعفي سكوليه كرته مجيته markii soo naxariis ma aha nabi ibraahim wuxuu markuu asnaamta ka hadlay rabbi innahunna adallna kathiira min an-nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim
إلهي معناها قفك عاصينا إلهي دمداف غفور رحيم أياتها وطبيعة كلا مركز طبيعة البشر كلا دواناشاس وكيل سائر يعني إلهي لو ودك كلا دوان إلا إس كلا دوانانا أنا ولا إس خلافة أنا شك كمجرو مركز أساس مرة ضيتها وعارف على اليرد إلى اللابط فران أو كلا دواناشها لحظة ولا غياب إني كلا دوانادان أي سمو أركينا دين كلا دوانادي معناها إن داش لو كلا جوري أو وحبا عن الإسلاق بسنكر وحالة فضان سيدا هذا مرعيدا لو كلا دوانادي إنك هكا كجرو وهذا عد كلا مقعد كو قصبيس أي سيدي رأيك هدي لو كلا دوانادي أنت عن سوق خلاف سنة أنت عن سوافق سنة وحابلا أنت عن سوافق سنة أنت عن سوافق سنة إن عن إسلاق قبلنا أنت مركان لما يمسيد القرآن كوالا من الهداية أنت عن سوق خلاف سنة أيضا بإسكا يران دون تهدان ولا شقينه أنت عن سوافق سنة يترى بدن هدان مال الصدقنا مركا وحاكلوا كم أسبابتك أن خلافك وحاكم فهم كنصوصنا وحكم من قبل أيكيريسو وأنا سوق قابنا يا شيخنا وانسينا يا أو وقتي قيب كمدا شيخ سوريا دا يسير دردار دليرada uu siiyo ana waxaan qaybtaas iyo khilaafaadka iyo waxyaabaha lagu xalliyo ma ka hadlayna laakiin doorka dhalinyarada iyo waxa looga baahan yahay insha Allah sheekha ayaa inoo sheegi doona ducadana inoo insha Allah taala haywana bisamarka insha Allah saas ayuu doona waxa marka fahamka yani fahamku wuxuu yahay markii la sheego xadiis ama aayad la sheego aayadda iyo xadiiska luqad ay ku soo degeen luqadu marka iyo habka luqada ay u qoran tahay ayaa waxa la jeedaa laba qaybood ayaa jirta qayb luqa ahaan macnaha markii la fasiraayo hal macna ka badan aan lagu fasiri karin iyo kelimo macna ka badan lagu fasiri karo waxyaabaha kale khilaaf ay ka mid tahay hadda mesela waa aqiimu salaata hadii la yiraahdo hal macna u bayraada waa aqiimu salaata oo ah salaada la tukado qof hadii la macna kale ku fasiraya qof ku fasiri kara ma jirto waa aqiimu salaata waxa dhahay sidii ninkan dhijibay fanka xoog wuxuu ku fasiray fanka tukada kaas ma dhaysin ma kaas ma واقيم الصلاة معنا المحيي هل يتوكل بس هل معنا يلا ساس درادة كلا دوانانشها أما إسخلاف كده لنا ولما عرفتن أيضا لسوق خلاف سنة صلاة أنت ترى العدد كده أي تاي شن صلاة وإنك تاي كوح يدونها عاتو أما جماعة يدونها عاتو أما مرعى يدونها وقته سومالي مركز جوجان ما يقصر على الواجبة أيال إسكرها هذيك يا مالتي أفضل تنكي ساعة لما هو هيسكوا فقسين شن صلاة أيال إسكرها عدد الركعات من السوق خلاف سنة ما لا يسكو خلاف سنة ولي ما عرفتين قراءة دور كمثلا أفر تكنيسة قراءة تكنيسة شن أما اللح أما تضبط ما جلته مالك السؤال الجول دوركو حديثه مكاس عن سفر لاهين ولا جانبين دورك هو أفر ولا سؤال فقسين معي نابك القرآن كوسو الدقيق وهو أقيموا الصلاة هل معنى هذا خلاف كمجرى كاسجع وحاضرك تمجد كلمة لما معنى له أي قرآن أي كجت مثلا أو حاله هذا كان بحاله قطع عيال هذا كان هكا معنى له midka oo macna ka badan leh waxa la yiraahdaa dhanniga macna wuxuu yahay kana uu noqon karaa waxa ka mid ah mesela aayada dhahaysa weyse markii laga hadlayo aw lamastum nisaa haweenka hadaad istaabataan weysadooda ka jabtay hadaad istaabataan hada waa qiimo salaat hal macna leeyahay laakiin hadaad istaabataan hal macna ma leh waxay macna leedahay hadaad istaabataan macna ka badan leedahay oo maxaa ka mid ah tusaalaan ama af Soomaali ha ahaato أما أفعال بها هاتين وحيلها معنى بها استعبشة وحالها ولا جعنت هذه السكوت تابتو استعبش وجعنتي سي جعنتي لا يعني سكوت تابتي وتابش عالية ميز كان تابتي ميكروفون كان تابتي موبايل كان تابتي تابش وحكى لي هذا إن يعني لا بقف ماذا إني يحاس كيسة هدي أي صوت تجان أو تاسنا بحالة أمريكا حقه بالك القاعدة بس حرق له فعلا حرق شكر حرق له فعلا
تاسكو واسمق لنا مرنا وا هيا مسكون كرنا ايوه كم حمار اسمها ايوه انتم كايمانه واسمق لنا سما marka marka waxaan dhahnay mid waxaa jira laba macno leh kan labada macno leh marka oo midalan aan ku tilmaanay hadda taabasho gacanta way noqon kartaa taabasho mid kale ahna oo qabiiska waajibinaysan way noqon kartaa labadana quraanka ku jirtaa oo midalan midda taabashada caadiga waxa quraan ku jirta walaw nazzalna alayka kitaban fi qirdasin فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين يعني هدين سود جال الكتاب أو كقرن في قرطاس ورقبة كقرن لأن قرآن مركو سود جاي نبي حفظنا بس مالكم ولا قرنين قرآن كجمعين تيسا أم أرورين تيسا نبي وقت يكذب سيدنا أبو بكر سيدنا عمر يحلي له أيام سوء دي أو الله قرن مركو هذا دي كتاب اللي سود جين لها أو فلمسوه بأيديهم دعموا الله كتاب الله عيه marka taabashadaas maxay noqotay taabasho gacmeed oo taabashadii caadiga ahayd ee la yaqaan ay tahay midda kalena quraanka ku jirtaayo maryam bint imraan waxa la wiil ayaa dhali doontaa markaas waxay tiri anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun san ilma ku dhalaaya asagoo uusan bin aadam itaabanin aayada quraanka kale ilaahay muuminiinta allah la wuxuu ya ayuha alladheena aamanu idha nakahtum almu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha haddaan intaad isguursataan aad gabdhihii midana muuminaadka guursataan oo aad furtaan idinka oo aan istaabaninta macnaha laga wada gacanta isku taabanin ama salaamin looma jeedo yani ciddada waxyaabaha loo tirina waxaa ka mid ah haddii maalan la kala tago in muddo 3 dhiig ah ama 3 bilood ah ayna gabadhu nin kala guursan karin si riximkeeda inaysan ilmo uuna ku jirin loo hubiyo macnaha raabidadii zawaajka ee kala goodayna loo ixtiraamo oo isla markiiba aan hor looga sii guursanin marka labadiiba soo marka taabashadii haddii marka sheekhu uu qaato midii hore oo uu yiraahdo taabashada gacanta waa weysay ku jirtaa waa sax oo quraanka ku jirtaa hadduu sheekh kala yimaado oo yiraahdo ma taas looma jeedo tan kale loola jeeda asna waa sax oo quraanka ku jirtaa inay kala duwanaadeena faa'iido inuu jirto oo hadii kala duwanaan lahayn diinteenu waa lagu rafaaday hadii kala duwanaan lahayn oo si u fasireen ay kala duwanaan lahayn sababtu maxay tahay haddaan meelaha iska joogno maalan Soomaaliya oo kale oo banaanka iska marmarayno oo markaas istaabashadii caadiga ahayd aan ku fasirno waa caadi weysay isku ku jabtaa dad ajnabi ah istaabtaan waan la weysaysanaya laakiin haddii taas bas ay ahaan lahayd xajka marka la tago oo kacbada la dawaafayo 2 milyan iyo bar qof ayaa marka qaarkood isugu imaanaysa oo rag iyo haween isugu jira meeshana waa meel yar marka 2 milyan meel ay dawaafayso gacanta in la isku dhufanayo shaki kuma jiro haddii hal qowl uu jiri lahaa oo gacan isku dhufashada kaliya lagu fasiray ay noqon lahayd waxay noqon lahayd 2 milyan markii meesha dawaafayaan in badan oo kamid ah gacantooda inta isku dhacdo in la yiraahdo ayee dawaafki joojiya weysadii way ka jabtay hal soo weysayso marka maanta oo weysada lagama bixin laakiin marka in la yiraahdo aqwaasha kala duwan markay duruuftan oo kala imaato waxa lagu fasirayaa midda fudud ee dadku ay ka faa'iideysanayaan ee lagu fasirayo midii mesela hadda diilay taas lagu fasira dadka ay culays ay dareemi lahayn mid walba meesheeda ayay ku hirgelaysaa marka kala duwanaanshahaas oo fahmiga aana asbaabta khilaafka u keena waana mid keentay asxaabtu ridwanullaahi calayhim iyo dadkii inaga horreeyay ee muuminiinta ah hadday arrin ku kala duwanaadaan oo diinta ka mid ah inay si caadi ah uga niqaashi jireen dhibna aysan lahayn asxaabtu ridwanullaahi calayhim ayaa ku kala duwanaa fahamka nabigu wuxuu yiri maalin uu u diray bani qurayda markii la aadaay qof idinkeeda kama yeesan ku tukanin illa fi bani qurayda la yusallayna ahad minkum al-'asr illa fi bani qurayda dhaxal markii la sii socdo qoraxdii ayaa inay dhacdo ku dhawaatay qaar waxay dhaheen asxaabtii kamid ah casarka iyo ninka tagin aan tukanno jidka aan ku sii jirnay qaarna waxay dhaheen meeshan aan taaganahay majidba mise waa bani qurayda oo meeshan bani qurayda miya marka salmay meeshan bani qurayda ma waa jidkii loo sii maraay waxay dhaheen nabigu wuxuu dhahay annaga la yusallayna ahad minkum al-'asr illa fi bani qurayda la ku tukada lana allah maayne jidka ku sii tukada lama dhihin kuwa kale waxay yiraahdeen dadaal un baa laga waday laga moodan casarka ka tagay aantan tukanno akadaad aan sii socono maya qaar way tukadeen inta idinku sii socdaan tukada ilaahay ayaa casarka qoraxda amay dhicin ayay tukadeen kuwana way iska sii socdeen qoraxda ayaa ka dhacday maghribkii markii la gaaro ka bacdi ayaa casarkii tukadeen ayagana labada soo ismayna khilaaf soo kala duwanaan nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa loo sheegay arrintaas dhacday ka waran
labadoodiiba mid uu eedeeyey ma jirto fiiri niyadu markay wanaagsan tahay haddii la kala duwanaado wax dhib ay leedahay ma jirto meeshaas waxaan ka qaadanaynaa oo aan rabaa dhalin inaan ku baraarujiyo waxaa jira arrin la yidhaahdo tacadudi sawaab sawaabku inuu tacadudi karo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan bes qowlka qofkan uu qabo keli ah inuu sawaab yahay oo una sawaabku meel kale mari karaynin taasoo kale hadday dhacdo waa la islaynayaa oo qof walba wuxuu leeyahay kaligan un baa jire kan kale asagu muyaalan yahay muu kugu soo raaco waxaa rabaa laabta intii la furo in la yidhaahdo qofka walaalkay ah ee ra'yiga aan ku kala duwan nahay waxaa laga yaabaa asagu inuu iga saxsan yahay laakiin weli ani kuma qancin inuu iga saxsan yahay imaam shaafici wuxuu dhihi jiray ra'yigii aniga ra'yigaygu waa sawaabun yaxtamilu lkhada waa isuu aniga ila yahay waa mid toosan laakiin inuu khalad yahay way dhici kartaa wa ra'yu gayrii qofka kale ra'yigiisana waa khata'un yaxtamilu sawaab waa khada ama waa gef ay dhici karto inuu saxsan yahay لأن جاينا كلا بحنا مكتب لبن ماشي بجوجو وهبل وعدي أحسن هبل وصح إن ضاع يمجوجو سيدا كلا طاي كان قفنا ولا كان سكلا إلا طاي أنا جاينا كلا بحنا كان هبل باصح يكبر باصح جاينا ضاع سيدا نوي نعكر كاسنا ميالي كرنا مرك إنا ضعنا هذه سال ما كنا عسنت يا فهم كاوسان ممكن ها فهم كفهم كده والعدي هاي زتا ما أقولش هاي سيدا عليه بعد رأيي على إن له احترامه أوجع عشان أيوة أسوي حوج على كيس إن له احترامه أنت رأيي الناس كلا احترامه ولا تنين الإسلام بدأ إن قد حيسه أنا رأيي وص عنه ما أد عجيب ولا حاجة تصوم على ده كل الدنيا شيء ما كون دعاء أما إسخلاف كذا لو حليه وعلاج في قريب كم أنا كقدر هنا لبنا ولا لا الحال أنت إستقالين أيوة وحي كل شيء إنه يزدلان وين صدق شيء بريد سبحان الله بالله أنت عند بريد سبحان الله جاري يا مغرب كم كم ده لبنا من ولا لا أيام من كلا وين يقول هنا لو وحارب ولا كا قبضوا داري ayaa wiil aan dhalay aan u rabaa inaan u doonee walaalka kaale ii raaco gabadhaas aan ka doonaynaa markaas Soomaalida guurku waa sharaf oo gabadhan laga soo doonay lama diido ina keenayna ku raacayaa albaabkii uu gargaraacay waa kuma waa hebel wuxuu qaatay inuu bariis wax sugi waayo caawad uu rabay bogsiyo markaas uu isdiyaaray wuxuu wasaanada ballanna bariis wax inaan isdilo waa maxwaad soo hormarisay caawad taa inaan isdilo ma wuxuu walaalo ma arrin kala imaatay bal waxa ay dhageysto albaabkan iga fur markaas uu maxay tahay arrintaas wuxuu nin ayaa ila socda wuxuu rabaa wuxuu gabadhaada ayuu wiilkiisa u rabaa ninka marka anigu fiiriyay waxaan ku miitay waxa ay imaaday nin wada dhalashada ma yaqaan laakiin waxa inaga dhaxeeya aan aqoonin waay inaan wada dhalasho yaqaana laakiin waxa inaga dhaxeeya iskhilaafkeena ma yaqaano saas daraadeed aan heshiino dadku inaga walaalo inaan ogeyn waxa inoo dhaxeeyana inagu baa isuga markaas waxay u noqotay intuu farxay albaabki ka furay oo odayaashii la qaabilay oo arintii la dhameeyay oo guurkii si loo dhameystir ilaa loo ballamay ayaa daawo waxay uga noqotay yani kelimadaas ayada qof waxa ay imaaday wada dhalashada yaqaana laakiin waxa inaga dhaxeeyaan aqoonin hadda Soomaali hadaynu nahay dadku way yaqaanaan wada dhalashadeenna oo Soomaali baa la yiraahdaa laakiin waxa inaga dhaxeeya inagu bahoos isu marka waxa aan rabno in la daaweeyo waxay tahay waxa inaga dhaxeeya inaguna aan isognahay walaalayaal aan iska dayno يعني dad meel kale aadayo yihiin waa arkan Soomaalidu haday banaanka u soo baxaan hal meel way isugu tagayaan Kenya hadda markii mesela Soomaalida dadkii Soomaaliya hore ee Kenya si degalay Soomaalida kale oo imaatay markii ay imaadeen kulli waxaan la isugu imaaday oo loo batay xaafadda Isiya la isugu imaaday dibadaha kale waa saas meel kale iska dhaaf Kacbada haday tagaan Soomaalidu Kacbada dadka taysooyeen Soomaali marka ay leedahay Xajar Ismaaciil ka fiiriyo ugu meel bay soo imaanayaan marka dadka meel kale aadayo oo Soomaali meeshu jirin idee ay tahay haddana hoos iska cunaaya aqal xumo ay keenaysaa marka cilaajku wuxuu yahay inaan isfahamno daawada waxay tahay ko ikhlaasu niyyati lillah ilaahi niyyada in khaalis loo yeelo oo yaani isriixa iyo maxay waxyaabaha isku xumaynta iyo kala aargoosashada in la joojiyo oo diintu waa diin nasiixa ah cid gaar u leh ma jirto diintu waa ina wada deeqdaa waliba way naga soo haraysaa ma dhamayn karayno ilaahi subhanahu wa ta'ala in daraadi inaan wixii inaga dhaxeeya aan si tartiib u xalisano oo arintu ay noqoto ikhlaas ilaahay dirti laakiin maalinka ay noqoto ilaahay dirti intii laga tago hebel hadda koor igu xumeeyay anna waan ku xumaynayaa hebel hadda koor saay dhahay anna saanan dhahaya barakad ayaa laga qaadaya cilmiguna sida salaada ay ugu baahan tahay ikhlaas ilaahay dirti ayaa cilmiguna ikhlaas ilaahay dirti u baahan yahay haddii mas'alada isku qabanayo mas'aladaas ka guugaarkeeda ha noqoto xaqu xabuu jira sawaabku xabuu jira ilaahay dartiis aan wada baarno ilaahay dartiis aan isu fahamsiino yeynaan isku xumaynin qofka walaalka ixtiraam iyo kamid ah ixtiraam marka midaas niyada oo khaalis laga dhigo ixtiraam ra'yi al-aakhar
ra'yiga oo la ixtiraamo yani kala duwanaanshaha fiiri waxaa iskhilaafay malaa'igta iskhilaafta waxaa iskhilaafay nabiyada iskhilaafay waxaa iskhilaafay asxaaba iskhilaafay waxaa iskhilaafay muslimiinta saalixiinta iskhilaafay malaa'iga iskhilaaftay dadka qaar walaga inay leeyabaan malaa'igtu way iskhilaaftay waxay isku khilaafeen nin ayaa wuxuu dilay boqol nin uu dilay boqol qof markaas waxaa isku khilaafay malaa'ikatu rahma wa malaa'ikatu cadaab malaa'ikasta waxay leedahay anaa qaadanayo kuwa oo malaa'ikatu cadaab waxay naartaan deynayna kuwa kale oo malaa'ikatu rahma jannadaan deynayna markaas ilaahay wuxuu soo diray xakaman baynahuma wax kala garsoora kala xukuma markaas haay dhowkii uu ka yimid iyo kii uu socday hal cabiro kii uu socday ayuu u dhawaaday saas oo janno ku noqday nabiyaal ayaa iskhilaafay oo say isku khilaafeen waxaad aragtaan fi suurati al-anbiya beer meel ku taala ayaa daaqay markaasaa nabi daawud iyo nabi sulaymaan way isdhaleen waa isku waqtigay joogaan waxaa loo imaaday nabi daawud waxaa leeyahay arigan oo beerta daaqay maxaad ku xukumi lahayd wuxuu waxaan ku xukumayaa ariga in la wareego oo ninkii beerta iska lahaa ariga uu qaato bas saas ay ku dhamaatay sheekada markaas ay ka soo baxeen nabi sulaymaan oo banaanka jooga hay maxaa lagu soo xukumay waxaa la soo xukumay ariga in la wareego oo ninka beerta laga daaqay ariga in la siiyo markaas uu yiri kaadi anaa ku noqonaaye aabahay anaa u sheegay oo bal si kale ugu dhigaaye wuu tagay wuxuu ku yiri sidaan uga naxariis badan labadoodaba haddaan samayna ka waran haye maxaad dhihi lahayd waxaan dhihi lahaa ariga ayaa lala wareegin ninka beerta laga daaqay ariga ha manaafacadsado caanaha ka listo agtiisa ha joogo ammaanaha ku ahaado inta ninkan oo beerta ninkan ariga iska lahaana beertii ha abuuro oo ha falo meeshii ay beertiisu markii la daaqaayo ay joogtay beertu markay soo gaarto ninkii ariga iska lahaa oo intaas caanaha laga sii lisanayo arigiisa ha loo soo celiyo arigiisa ha kaxaysto ninkana beertiisa oo loo abuuro oo meeshii lagaga daaqay u soo gaartay ha lagu wareejiyo markaas nabi daawud wuxuu tana fiican quraanku markuu ka hadlay ilaahay wuxuu yiri fafahamnaha sulaymaana mas'aladaas waxaan fahamsiinay oo sida uu yiri ay tahay fafahamnaha sulaymaana nabi daawud ee sakal xukumana maxaa lahay wa kullan aatayna hukman wa ilma midka saxibmad ilaahay uu siiyay nabigii horena si fiican uu xukumay oo saas uu arkay nabigana si kale uu xukumay laakiin markii yaa naxariis badan ay noqoto sidan inay naxariis badan tahay oo ninka aan xoolihiisa laga wareegin oo ay u soo noqoto xoolihiisa kana beertiisa loo hagaajiyo sidaas amay roon tahay fafahamnaha sulaymaana wakaas mana inay isdagaalino maxaad u xukuntay maxaa yeelay xoolaha laga wareego iyo xageed ka keentay lama dhihin marka waxay u baahan tahay xigmad iyo si tartiiba in yani hayay waxa iskhilaafay yani haday nabiyadii asxaabtii oo tiyada arkaynay oo qaar dhexda ku sii tukadeen qaarna ay meeshii loo socday ay ku tukadeen mar haday saas ay tahay inaga xagee joognaa masaa'ilka khilaafi oo yar oo yani u baahan ijtihaadka iska dhaafe waxyaabo iska muuqda ayaa isku khilaafay maxaa kamid ah aadaanka meeqa mar maalintii la aadaamaa 5 mar ayaa la aadaamaa aadaanka haddana madaahibta markaad fiirisid say u aadaamayaan way kala duwan yihiin qaar aqimada markii la aqimayo inaga soo hal mar lama dhaho Allahu akbar kadib ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah qad qamat hayya ala fisas madaahibta Abu Hanifa oo kale marka dadka Hanafiyada sida Turkiga oo kale hadaad aragtid way sidii aadaanku kale u lama laawayaan wana aqimitaanki الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وكل العناية وآذانك يا قيمتانك ما أنك سلم مقلاه محل يوكل الدنيا وروح ما أنك سلم مقلاه مرك الدين تاني ودين تسواسعه هذا صام بعض هذا صام بعض واللي الدين تكون المديين واحد مشكلة ولا أنا مجد مرك صار هذا يعني عليس ليس صار مدة كلا علاج كلا يعني نقفنا اسكت دين أيه الرأي مركز وقوه إنه ضدك أن كقصبه oo yiraahdo sida aniga ay la tahay qofkii aan yeelin ma soconayso mid aad koor waxa la yiraahday meel oo yaasiimay laga akhriyo la geliyo oo xogaa weynay ka jirtay oo uu sugayo in looga yeero waa loo gudbiyay loo gudbiyay meesha asagoo maqan oo soo ku maqanaa yaasiimay iska aaday yaasiimay la soo akhriyo la soo qadeeyay ayada istakiin la wata laga hor imaado qadii soo dhamaatay marka waxaad ka imaateen yaasiimadii isbuuc amal la sugayo in la akhriyo ayaa la soo akhriyo oo أنا كجرينا ها ياسين أنا أخرين أقبل ما أقولها ياسين أنا أخرين أقبل ما مرة ياسين دي لا أخرين إلى الخوف أقبل أسلعه لكن ذات إلى المتك أنا أخرين إلهي ما أقبلها تاسوا نباتك إلهي هو أقبلها يا أدي أنا متك كلا كسوق يدري دور تاني إسكرها له مرة مرة رابط هلا فرو مسلمين تنا ولا هلا أو يقولوا دارهان بل يرادوا أيه خلاف شقبكم له
maxaa yeelay waxa la isku haystana waxa laga yaabaa inaysan fahamsanin inayna ogeyn waqtiga in laydinkaga qaadana ma aha wixii ummaddan dhisaayo hore u socda taasaa idinkaga anfacaya odayaasha waaweyn ee khilaafyo saas oo kale ah waa la ixtiraamayaa yani lagama hoosguuraayo waxay mudan yihiin in la qadariyo laakiin macnaheedu ma aha anigaa iskhilaafnay adna khilaaf hebel anigaa nacay adiguna nac mid hadda kor saasoo kale afbaydha mid wuxuu la yaabay dadkoo dhana ula dagaalaa markaasuu qofku la dagaalaba dadka uu yeeraa hebel waa la dagaalsanahay kaalay adina la dagaal war aan muxuu iga hadleeyahay war aad wax moogid anaa ku oge adi qofkaa nacaba nac markaasaa wuxuu yidhi dayeesh waxaan kuu sheegaa lankun ani ka hadi adigana kahoy ilaahay bay ku weelaan macnaheedu hada qofkan anaa nacay adiguna ila nac ilaahay baan ka yeelaya taasayda qof aan ka yeeli ma jirto maxaa yeelay ilaahay waa taxdiiskaad aragtay qof hadduu naco jibriil wuu yeelayaa wuxuu leeyahay qofkaas nacanba waa nacay jibriil wuu nacayaa malaa'igtu u sheegayaa malaa'igtuna way nacaysaa kadib dhulka waxaa loo soo dejinayaa karaahiyo hadduu qof ilaahay jeclaadana jibriil uu yeeraaya wuxuu hebel aan jeclaada jeclow wuu jeclaanaa markaasaa malaa'igtu u sheegaa kadib dhulkaa loo soo dejinaa jacayl saasay ku soconaysaa marka qof bini aadama inuu ku yidhaahdo hebel anaa nacay adigana ila nac ha ka yeelin sida ninkaas uu yidhi caqligaasaa rabaa lankun kahoy ani ka hadi ilaahay bay ku yeela u dhahay marka ilaahay baan ka yeelamaan cid kaloo ka yeeli ma jirto adiga xoraa tahay bini aadamaa tahay maskaxaad leedahay ha iska dhigin aalad rumuud control lagu xukumo oo marna tuu la geeyo marna tii la geeyo marna foor la geeyo noqonin waxaa waay wixii loo sheego waxaa tirahdaa say ku dhacday sababtu maxay tahay lima lowlaa lima lakaana alximaaru faqiihan haddaan lima laisdhahaynin oo waxaan maxay ku dhicin laisdhahaynin waxaa li dameerku wuxuu noqon lahaa qofka ugu faqiisan ee ugu cilmi badan maxaa yeelay wax ka cod dheer ma jiro dameer mukarafon xataa uga baahna gawuu ka siinaa marka haddaan lima laisdhahaynin oo cod dheeraan iyo qaylo oo lagu noqonayo wax dameerka wax ka cod dheer ma jiro marka saas daraaddeed war kasta waa inay weli jirto maxay saa ku dhacday sababto ilahay muxuu caqliga inoo siiyey inaan ku fikirno marka khilaafaadka iyo waxyaalaha jirana waa wax hore u jiri jiray waa wax maxay ahayday oo dabiicada bini aadamka ay keenayso waa wax diinta iyo fahamkeeda iyo nusuusteeda iyo kelimooyinka say kusoo degeen lagu kala duwanaan karo mar haddii kulliyaadkii guud iyo intii islaamka lagu noqonayo aan isla haysano ahlulqibla haddaan isla nahay wixii aan gowracana aan isla cunayno aan yani salaaddii isla tukanayno xajkii aan isla aadayno wixii kale oo lagu kala duwanaado ha la isugu cuurdaaro walaalahan lagu noqon aad umaadsantay jazaakum allah khayr waxaan runtii idinka mahad celinayaa kulanka wanaagsan iyo soo dhoweynta iyo isu imaanshaha oo runtii yani ka turjumaya baraarug fiican oo ummadeenna gaar ahaan dhallinyarada ay diintooda